وحاربنا معناتنا كهضنا isbedel noocee ah ayaa sugaynaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed isbedel noocee ah ayay sugayaan ummadda Soomaaliyeed maanta xaaladdan ku jirto ilaa goormee ayaa sugaynaa in aan maanta ku noolaano nolol in aan maanta helno mustaqbalka dhalinyaro ahaan inta badan waxaa la dhahaa dhalinyarada Soomaaliyeed inteena badan waxaa la dhahaa ha ka hadlina masiirka ummadda Soomaaliyeed waxaa tiin dad da'yar ah wax barta waxbarasho sameeya shaqo raasada markaas kadibna raadiya experience ilaa 10 sano ah ilaa 20 sano ah si aan u helno mise ka gaarno go'aan mise lana maqlo codkeena marka laakiin muhiimadda maanta isweydiinta badan waxay tahay ma hadday maanta experience wax tarayso hadday maanta shahaado intaasoo qof oo maanta waxaa wadanka joogo experience ah intaasoo wad qof ayaa joogta maanta wada PhD holders ah at the same time maanta ummadda Soomaaliyeed sidan bay ku nooshahay run ahaantii maanta badankiin waa laga yaabaa inay isweydiisaan war adiga maxaa yaa kaa dhigay in aan noqoto saamiliyada siyaasadeed ee wadanka oo aniga u diiday dhalinyarada Soomaaliyeed maanta inay go'aamiyaan waxa u dan ah run ahaantii miyaysan ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed miyaysan ahayn dhalinyaradii SYL soo go'aamisay masiirka ummadda Soomaaliyeed maanta u keentay xurnimada maanta adiga ku nooshahay waxaa laga yaabaa maanta inay isdhahdaan maxaa ka hadalsiinaya qofkan waxa iga hadalsiinaya waxay tahay waxaan ahay qofkiin waxaan ahay shakhsi kamid ah intaasoo milyan oo Soomaali ah miyaysan ahayn xadiiskeenii rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam oo dhahay maanta hadaa wax qalad aragtid ku bedel action hadaa ku bedeli waysa action isku day inaad ku bedeshid afkaaga mise qowlkaaga hadaan awoodin ku bedel qalbigaaga ogow dhalinyarada Soomaaliyeed waxa imaan doonta maalin aan awoodin inaad hadashid xataa maanta maalin ay imaan doonta inaad hadashid ay noqonayso waxa laga yaabaa maanta ilaa goormee marka waxa rabnaa inaan isweydiino maanta waxay tahay war maanta ma la tartami karaa dhalinyarada ana ila midka ah maanta hadaa garab istaago cunugka wiilka imaada China hadaa garab istaago qofka imaada wadankan Mareykanka maanta ilaa goormee ayaa rabnaa ilaa halkee aan ka tilaabsan karnaa ilaa goormee ayaa tartami karnaa waxa laga yaabaa maanta qofkaas inuu igu aadin aqoon inuu ku aadin qofka dhalinyarada Soomaaliyeed karti inuu ku aadin laakiin inuu laga yaabaa ugu dheereeyo in uu leeyahay wadan taageera horumariya leh go'aamiya mustaqbalkiisa 100 sano soo socdo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed marka halkee maanta ma jirto qof maanta wax bartay ma jirto qof maanta shaqaysa og mustaqbalkiisa meesha ku dambeeyo wadamo qaarna markay sida Japan oo kale ay leeyihiin 100 sano soo socdo keedkii dhalinyaradooda meel ay u dhigeen marka waxa u baahanaa waxay tahay in aan ku dayano dhalinyaradeenii Soomaaliyeed ee waagii soo gaarta go'aankan maanta keentay nolosha ayaa maanta ku noolnahay waxaa la gaaray waqtigeeni waxaa la joogaa waa waqtigeeni maanta codkeen la maqlaa every single person among us waa loo baahan yahay in codkiisa maqlo waxaa laga yaabaa boqolaal aniga ila midka ah maanta qaadala waxa wadanka ka dhacay qaadala maanta nolosha Soomaaliyeed ee ku nooshahay waxaa laga yaabaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed kan jooga Hargeysa kan jooga Garowe kan jooga Muqdisho kan jooga Kismaayo waxaa laga yaabaa maanta in maskaxdooda laan istiraatiiji ahaan mise dhul ahaan loo kala dhigay xuduudo war maanta heer waxa taaganahay dhalinyaradeen loo kala dhigay maskaxdeen xataa leedahay xuduudo maxaa diida maanta maxaa maanta ay u hiigsalanahay ilaa meel dheer inaan gaaro maxaa maanta markasta waxa dhahnaa wadamada waaweyn war adiga yaa ku diiday in aan noqotid wadamada adduunka ugu waaweyn yaa ku diiday maanta in aan noqotid wadamada dhaqaalaha bixinta og ilaahay khayraad buu na siiyay dhul buu na siiyay وحكستو بنا آدم لغوما نستنمعا واسينة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مياسا نقولنا دادك لديه جل عقل بليه لكن كما فكران وحو حقا وعرقنا لكن كما هذا مياسا نقولنا أصحاب الأخدود ما هذا قعما انت اسكور صارتي أركيس لباطة كل عيس أمد الصوماليات مركزتو وحالة دهادان يرد الصوماليات qof waxa laga yaabaa maanta markuu sensitive issue ka hadlayo waxa laga yaabaa inuu lagu tilmaamo waxa laga yaabaa qofka inuu qabiilkaas yahay mise meeshaas oo yahay mise xisbigaas taageersan intaba ma ahan laakiin bini aadanka ayaa kala duway aqliga fikirka iyo hanka ay leeyihiin bini aadanka ayaa kala leh meelo mise hiigsi ay ku leeyihiin waxa la gaaro waqtigeeni waxaan u baahanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in codkooda raise gareeyaan